caasimadda iyo magaalada ugu weyn Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax-bannaanida ee Somaliland waa dawlad dhab ah oo ku taalla Geeska Afrika, welina caalamku u aqoonsan yahay inay ka tirsan tahay Soomaaliya. Sidoo kale waa xarunta gobolka Maroodijeex ee Somaliland. Magaaladan oo ku taalla gobolka Maroodijeex ee Somaliland waa xarunta baarlamaanka Somaliland, waa xarunta madaxtooyada iyo wasaaradaha. Maayirkii ugu horreeyay ee Hargeysa 1960 waxa uu ahaa Aadan Cumar Furre. Maamulka dawladda hoose ee hadda jira waxa hogaaminaya Cabdikariin Axmed Mooge, xubin ka tirsan xisbiga Wadani. Waxaa loo doortay maayirnimo xilligii doorashada dawladaha hoose ee Somaliland. Muuqaalkeena caawa waxaynu ku soo qaadanaynaa in yar oo ka mid ah taariikhda ay leedahay hoygii fanka ee Hargeysa. Halkanina waa Xukmaal Media. Ku soo dhawaada daawadayaal mar kale muuqaalkeena caawa. Ugu horreyn daawade, haddii aanad ka mid noqon asxaabta nagu xidhan, ha ilaawin inaad subscribe dhahdid channelkan. Sidoo kalena haddii uu ku qanciyo muuqaalkan, ha ilaawin inaad like saartid. mahadsanid. Waxyaabaha aynu muuqaalka ku eegi doono waxaa ka mid ah taariikhda Hargeysa, juqraafiga Hargeysa, magaca Hargeysa. Hargeysa waa caasimadda dalka Somaliland. Waqtiyadii hore, magaalada Hargeysa waxa ay ka tirsaneyd maamulkii saldanadii Cadal ee ka arrimin jiray deegaano badan oo ku yaala Somaliland. Boqortooyadii Ingiriiska ayaa magaalada Berbera ka dhigay magaalo madaxdii British Somaliland. Waxaa sanadkii 1941 lagu wareejiyay magaalo madaxda caasimadda Hargeysa. Sanadkii 1960 gobolada waqooyi ee Somaliland waxay la midoobeen koonfurta Soomaaliya. Sidaas ayaa Hargeysa ay ku dhaaftay magaalo madaxnimadeedii, laakiin waxay magaaladu ahayd mid ka mid ah magaalooyinka ugu weyn Soomaaliya. Kadib markii ay Soomaaliya ka dhaceen dagaaladii sokeeye ayay sanadkii 1961 mar kale noqotay caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland. Kadib burburkii dawladii dhexe ee Soomaaliya, ku dhawaaqistii go'aansashada Jamhuuriyadda Somaliland, waxaa dib u dhiskii kaabayaasha dhaqaalaha oo gaabis ahaa ka bilaabmay Hargeysa iyo magaalooyinka kale ee dalka. Ilaa 1991 Hargeysa waxaa lagu sameeyay dayactir aad u ballaaran. Dayactirkan ayaa waxaa intiisa badan maalgeliyay ganacsato u dhalatay deegaanka. Sidoo kale qurba-joogta Soomaaliyeed ayaa lacagaha xawaaladaha ugu soo dira qaraabada gobolka oo u sii marinaya qaar ka mid ah xawaaladaha kala duwan ee Soomaalidu leedahay. Inta badan dhismayaasha guryaha iyo kuwa ganacsiga ee burburay ayaa dib loo dhisay, iyadoo dhismayaal badan oo cusubna la dhisay. Dhismayaal dabaqi ah oo ku yaala bartamaha magaalada ayaa sidoo kale si tartiib ah u siinaya darajooyinka dhaadheer ee magaalada Hargeysa. Si kastaba ha ahaatee, magaalada Hargeysa waxay dhacdaa dooxada Galgodon ee deegaanada Ogo, waxayna magaaladu ka sarreysaa biyaha badda joogdhan 4377 mitir. Juqraafi ahaan magaalada Hargeysa waxay saaran tahay buuro, dooxyo iyo deegaano carro bataax leh, si la mid ah magaalooyinka kale ee ku yaala Somaliland. Dhismayaasha magaalada Hargeysa waxay caan ku yihiin farshaxanka iyo qurxinta dhagaxa dabiiciga ah ee laga helo buuraha ku hareeraysan magaalada. Waa tan ugu bulshada badan magaalooyinka Somaliland, waxaana ku nool caasimadan dad tiradoodu gaadho in ka badan 1.6 milyan. Guud ahaan magaalada Hargeysa, deegaanka magaaladan waxaa aad uga baxa geedka tiinka. Goobta iyo deegaanka Hargeysa waxay ku taal dhul buuraley ah. Waxay ku fadhidaa meel sare oo joogeedu gaadhayo ilaa 1334 mitir. Waxa ay ku taagan tahay 4377 cagood oo ka sarreysa heerka badda. Magaaladu waxay ahaan jirtay mid ay ku hareeraysan yihiin kaymo, laakiin hadda ma aha sidii hore oo weli meelaha baadiyaha ah ayuunbaa laga helaa kaymo yaryar. Hargeysa agteeda waxaa ku taal buuraleyda Sheekh iyo buuraha Daalo oo ay ka da'aan roobab aad u badan. Sida ay ila badani isku raaceen, magaca Hargeysa wuxuu asal ahaan ka yimid ereyga hargegeeya oo ka turjumaya horraantii Hargeysa inay ahaan jirtay meel loo soo iib keeno haragga xoolaha. Ila kale waxay ku waramayaan in magaca Hargeysa ka yimid af Oromo, kaasi oo la micno ah meeshii tiinka badanayd. Sidoo kale dadka qaar ayaa iyaguna waxay ku waramayaan in magaca Hargeysa ka yimid harar as-saqiir oo ay micnaheedu tahay heerarkii yaraa luqadda af Carabiga. Inkastoo aan lahaynin taariikh xaqiiqo ah, waxaa la aaminsan yahay in Hargeysa uu aasaasay Sheekh Madar qiyaastii 1800, waqtigaasi oo sheekhu ka dhisay maqaam xeereed iyo meel lagu nasto. Intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkeena maanta. Haddii uu ku qanciyay muuqaalku, ha ilaawin daawade in aad la wadaagtid asxaabtaada. Haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir, ka mid noqo bahweynta nagu xidhan. mahadsanid.